Asalaamu calaykum dhammaan waa shaqaynta xiisaysa Konami ama eFootball meel walba adduunyada ku joogtaan ku soo dhawaada muuqaal cusub halkaad naga daawanaysaan waa Yaki Boy anigana waxaan ahay saaxiibkiin walaalkiin Yaki Boy Gamer maanta iyo muuqaal cusub muuqaalkeeni wuxuu ku saabsan yahay laba qodob aad u muhiimsan qodobka koowaad waxa waaye waxyaabo digniina oo aad iska ilaalinaysid inta aadan ku degdegin qodobka labaadna waxa waaye waxyaabo ka qarsoon oo aad maqashay laakiinse ka qarsoon inaad ku tusiyo ayaa rabaa okay intaan muuqaalkeen gudaha u sii gelin waxaan kaa codsanaa inaad muuqaalkan like saarto channelkan subscribe dhahdo gambaleelkan aad furato si aan u helno saaxiibo wanaagsan sidaad oo kaleeto waayahay muuqaalkeeni haddaa gudaha u sii galno waxaan ku bilaabaynaa waxyaabaha digniinta ah si markaasi aad iskaga ilaaliso waxyaabaha digniinta ah wax weyn ma ahan laba qodob waaye labada qodob waxay kala yihiin saa wada og tahayba shirkadda Konami waxay keentay laba big oo isku mid ah Germany iyo Germany ah labadan big adduunkii oo dhan ayaa yaaban shirkadda maxay damacsan tahay waxaan maxay yihiin ayaa la isleeyahay adiga digniinta aan ku wado waxay tahay waxyaabaha gaaladii oo ay ka yaaban tahay ha ku degdegin qaybtan Germany Fit kabtan Tsubasa malaha qaybtan oo jinjiniga ah qaybta koowaad ah iska ilaali oo ha tuuranin lacagtaada ku khasaarinin sababta saas ku dhahayo waxay tahay qaybtan kabtan Tsubasa waxa waaye qayb hadda heshiis lala galay waa qaybtan jinjiniga shirkadda hadda ayay heshiis la gashay awoodooda ciyaaryahanada awoodooda markii garoonka lagu jiro inay isbedeshaan laga yaabaa horta labadan big waxba kama bedelno haddii aad fiiriso labada big midkii jinjiniga haddaad soo gadato 106 Borteria 106 ayuu gaarayaa kan kalena Borteria 106 Romandiya asagana 105 ayuu gaarayaa kan kalena 105 ayuu gaarayaa adi kan kalena 105 waaye laakiinse tradingka saas ayaad u siinaysaa waxba kama bedelno waxa waa speedkooda waxyaabaha kulli dhammaantood waa isku mid waaye laakiinse shirkadda waxaan gaaladii sibir ahaan waxay u muujinaysaa sidaan jinjinigan oo ninka Jabaneeska ku ciyaaray ee ninkan jimistaha ayaa la kala saaray waxaan gaaladii ka yaaban musow ha tuuranin qaybtan oo Germany kabtan Tsubasa hadda la keenay oo jinjiniga iska ilaali ha tuuran ciyaaryahannadan waxaa laga yaabaa marka ay iibsato garoonka markay ku jiraan in ay qaab khaldan iyo si aadan rabin inay u ciyaaraan haddii aad rabto qofka ugu horeeya oo soo qabtay inaad noqoto qaybtan tuuro qaybtan Germanigan albigyadii aad taqaanay oo qaabkii hore loo keeni jiray oo aad taqaanay oo sidaan u muuqdo ayaa tuuro qaybtaas ayaan kugula talinayaa haddii aad doonaysid oo qofka ugu horeeya oo soo qabto haddii aad rabto inaad noqoto haddaba qaybtan tuuro qaybta kale oo digniinta aan kaaga digayo waxay tahay qaybtan oo match baaskan markii hore wuxuu ahaa 250 iyo 500 in lagu furto haddana waa isla sidii ciyaaryahanno kala duwan ayaa la soo dilay Saana iyo ninka kale markii qaybtan 250 haddii aad tuurato waxaa helaysaa koonisyo 200 oo u dhow ama 200 oo kale ayaa helaysaa 250 koonis 30 koonis ayaa helaysaa haddii aad tuurto 20 koonis ayaa ka dhumi doonto qaybtan kalena waa digniin 500 haddii aad ku furato 500 way ka dhumi doontaa waxaa heli doontaa kaliya 230 koonis bisa heli doontaa iska ilaali muusow koonisyada aad tuuratay koonisyo ka yar ay ku siin doonaan dadka qaar waxaa laga yaabaa 250 iyo 250 inay u kala tahay laakiinse muusow qaybtaas iska ilaali waa digniin waxyaabaha markaasi ka qarsoon oo aan rabo inaan ku muujiyo ama ku tusiyo waxay tahay shirkadda waxay sheegtay 5 garoon ama stadium inay ku soo dartay eFootball Konami inay ku soo dartay ayay sheegtay 5 garoon waxay kala yihiin Allianz Arena Old Trafford Emirates iyo garoonkan kale iyo San Siro adi 6 garoon ay isku noqonayaan football stadium haddii lagu daro markay garoomadan hadhow marka game ku jirto ma arkay sidee halkee ku jiraan
garoomadan waxay ku jiraan haddii aan ku muujiyo waxaad imaanaysaa qaybtan u dambeyso game settings waxaa kusii dhufanaysaa qaybtan hoos ee download data ay ku qoran tahay qaybtaas markaa ku dhufato labadan mid waxaa arkaysaa qaybta hoose in ay ku qoran tahay download stadium data waxaa kusoo degsanaysaa 300 oo MB 13 oo kale ayaa kusoo degsanaysaa laga yaabaa ka yar inaa kuu soo baxo laga yaabaa ka badan inuu kuu soo saaro qaybtaas ayaa isagana garoomada ka soo degsanaysaa waxaa kaloo gameka ka cusub oo lagu soo kordhiyey waxay tahay qaybta languageka haddaad tagto English iyo intaan hore ayay u yaaleen laakiin luuqadda cusub waxaa waaye Turki ayaa lagu soo diray qaybtan waxaa lagu soo diray Turki weyiga Turki ayaa lagu soo diray weyi Turki ah ayuu markaasi ku tagin doonaa ciyaarta haddii ay iibsato weriyaal oo Turkiga ah marka muuqaalkeeni intaas ayuu ku saabsanaa muusow haddii aad rabto inaad wax tuurato haddaba iska ilaali waxyaabaha aan kuu digay waa kuu sheegay haddaba iska ilaali muuqaalka dhammaadkiisa haddii aad nala soo gaartay maxaa diidayo inaad muuqaalkan like saarto channelkan subscribe dhahdo gambalelkana aad furato si muuqaal walbo aan soo dhigno uu kuu soo gaaro waa mahadsantahay